beesha baadacada oo kamid ah beelaha daga gobolka Hiiraan oo qabsatay kulan dib u heshiisiin ah oo beesha dhexdeeda ah sida warkan uu ugu ambaqaaday wariyaheena Cabdirashiid Sandheere. munaasabadan xafladda oo ahayd mid ay ku midoobeen beesha Samarob oo kamid ah beelweynta baadacada qaybna ka ah dadka daga gobolka Hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. kulanka ayaa waxaa goobjoog ah waxgarad siyaasiyiin dhaqan haween arday ganacsato iyo dad kale oo ay ka go'do talada beesha oo munaasabadan goobjoog ahaa. muddada ay munaasabada socotay ayaa waxaa la isla soo hadal qaaday beesha iyo marxaladaha ay soo martay muddada ay wadeen dib u heshiisiintan beesha dhexdeeda ah. halku dhiga sanadkan ay beesha qaadatay ayaa waxa ay ahayd xafladda u dabaaldegidda midnimada walaalaha Samarob. si gaar ah munaasabada ayaa waxaa soo qaban qaabiyay dhalinyarada beesha Samarob oo hogaaminayo gudoomiyahooda Mahad Qoorgaab. ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha baadacade waxayna bogaadiyeen heshiiskan ay gaareen beelweynta Samarob. dhammaan marti sharaf kale nabadoonnada baadacado iyo culimada iyo akhyaarta iyo marti sharafka gabdhaha khayr Allah siiye dhammaan waxaan u sheegaynaa Samarob muddo badan oo kala maqnaay 19 sano iyo 6 bilood ayuu Samarob kala maqnaay juhdi dheer markii la galay oo wax yani muddo badan la soo waday waxaan Ilaahay ku mahadinaynaa in maanta maxfalkan iskugu yimaada la isku cafiya gacnaha la isqabsada Samarob oo yahay بعد السلام ما عندها هدي عرضك أبكي جيد أبكي حسين يا أبكي عمر أي مذوبين وبعد عدوم مذوبين مرة دو عرضك مذوبين بعد عدوم مذوبين إلا متى هاي أنا مسودوين من مذوبه تفرارق ومحمود ترى وعبنا الحجار وهو هاي وحنا سلام ما أنت هور مركو ذا باللفظ سمروب ما أنت هور مركو ذا باللفظ وحبضن وحلي عمر يقضي وحوق ومشي جام hogaankoodu uu maqan yahay inuu tiih gali karo waa la iskaga jeedaa horta jiradaas Ilaahay naga bixiyo jiro fiican ma aha waan u mahad celinaa maadaama ay muddo badan kala maqnaayeen isfahmeen waa ku mahadsan yihiin waa u hambalyeynaa tan kale intaas in anagana aan fiirsano ogaano codad intaas caloosha la isku haayo wax fiican ma aha muslimnimo dadnimo walaalnimo wax fiican ma aha marka waa idin hambalyeynaa horta heshiiseen waan idin soo dhaweynaa xafladda tanoo kalena in lagu wada daydo oo ninkii codad qabo oo hadda baadacada ama qofka sheegana ama qabiilka sheegana sidaan oo kale uu sameeyo dadka ahliyada weey waxa la rabaa in la dhaxgalo oo liira war maxaad isku haysaa ma dhicin laakiin maanta ayay ayahooda ka tashteen is garteen waa wax lagu farxo waana soo dhaweynayaa anigoo ku hadlayo magaca nabadoonnada iyo beesha afkaab nabadoonkeedii anigoo ah waana wax lagu farxay sameeyeen ku dayasho mudan marka intii wax tabanaysa ama xogaa khilaaf oo haduu jirana waxaan dhiilay walaal fagaaraha imow waxa tira dadka ruuxana ka tabanaya Soomaalidu waxay tira magaalo xaasad lama dago laakiin magaalo macsi waa la dagaa كله حاسين ماذا ما في عنو وشيء أدوهم وين. أنا جوا وكيل كان نبضون كباش حمد وحن بقول كي بالله بقول تاجر يا مدني ماذا ولا لها دور كسنة كلام مقنع أيان بقول كي بصدق بقول تاجر يا كلام مقنع شو هي خلافكم دباتوين كولية هاي إسلامكم بوجه الله حد يجرنا برشوين كوحيابها دعوة ayay ka mid tahay dadku walaalaha ah inay kala muqnaadaan ama iskhilaafaan la taqtalifu fatafshalu wa tadhhab rihukum dadku haday iskhilaafaan oo ay kala tagaan waxa tagaya awoodu way fara badan tahay awoodooda dhaqaalaha tagaysa awoodoodii jiritaanka dadnimo tagaysa awoodoodii aqooneed ba tagaysa macna waxa way ba burburaya إن شاء الله تعالى مركا أنا وأفكار كه الله مر لبعض وحن تاجريا مدينة ولا لها وما تحل كان الله فنيو. أنا بحسن عبد الله النصر والله وضع بكم إذا دلني يرد باش بعد عداء أيضا كذا برامبر يتح جبيه يا هذا الله بقادين أهجاب تكجيدي
mid yar baan ku soo koobayaa muhiimadaydiiye madaxdeenna joogtay dalkii magaaxa loo raadsho maskaxdiina maalo midnimo meel ha lagu gaaro mas-uulkii la doortana dalkan meel ha ku ogaado dhalintaan muraal beeshaye manka laga haysto madashay tagaan lagu yiraa madaxda noo keenso madashay tagaan lagu yiraa madaxda noo keenso ha maqsuuda hooyada dhasho murugta ay hayso ha maqsuuda hooyada dhasho murugta ay hayso hamidowda ummadan tolo midiiba meelaaday daba la dhigahayo hada halkaygu waa digniin daba la dhigahayo daba la dhigahayo daraja wax loo yiraa waxa dadaalahayo nabahadan waxa dajiyay waxa dadaalahayo nabahadan waxa dajiyay waxa doonahaya inuu dadka horayo maro waxa doonahaya inuu dadka horayo maro nabadoonka guud iliyo duqowdeena nabadoonka guud iliyo duqowdeena daacada dulqaadkaad muujiseen maanta duugimaa islow cabdisamad wabar axmed wabar cabdi oo ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed oo asigana dhankiisa goobjoog ka ahaa munaasabada ayaa dhankiisa waxa uu beesha kula dardaarmay in midnimada laga shaqeeyo sidoo kale qadka telefoonka ayaa waxaa kaga soo qayb qaatay wabarka guud ee beesha Baadacade oo ah qofka ugu sareeyay munaasabada maanta iyo gudoomiyaha dhalinyarada beesha Samaroob gudoomiye Mahad Qorgaab iyo Nabadoon Caray oo intoodaba qadka telefoonka ugu qayb qaatay ayaa waxa ay bogaadiyeen howlaha wanaagsan ee wadaan beesha dhexdeeda ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray Nabadoon Iidle Xasan oo ah nabadoonka guud ee beesha Samaroob wuxuuna beesha kula dardaarmay in tafaraaruq isku dhac dambe oo beesha uusan dhex marin marka sidaas darteed waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa khilaaf dheer oo muddo dheer soo jiitamay oo sano tirsaday oo 20 sano soo qaatay in noo qabsoomaan ma qabanin markaas kuma qabanin fikirkayna kuma qabanin aragtadayna kuma qabanin maalkayna kuma qabanin ragnimadayna waxaas ku qabsamay qotro ilaah alxamdulillaah ilaahay baa mahad iskale ilaahay baan u tuurinayna marka sidaas darteed ilaahay baa mahad iskale wixii ka dambeey waxaan u mahad celinayaa walaalaha Samaroob oo dhalinyarada ah oo halkan xafladan wanaagsan dhigay walaalahooda Baadacade oo balooyinta bah iyo boqor ka soo qayb galiyay oo fikirkooda galiyay maalkooda galiyay meel ay joogan dalka gudihiisa magaalada Xamar iyo dibadda intaas mahad ka gaarto ayaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa beesha Samaroob oo u istaagtay in ay midowdo anigoo ku hadlaya nabadoonka guud ee beesha Samaroob Iidle Xasan Xuseen ujeedo عدين هشيس جود باشا سمروب waxaan halkan ka cadeynayaa in ay ku heshiiyeen beesha aan kor ku soo xusnay qodobadan soo socda koow inaan diyada isla dhiibno beelaha Commonwealth laba waa inay isla dhiibaan beesha Samaroob Dignool saddex waa inay isla bixiyaan duugmay beesha Samaroob wabillahi tawfiiq Cabdirashiid Sandheere telefishinka caalamiga ee Kalsan TV magaalada Muqdisho